dhacda xusuus weyn ileh waxa weeye dagaalkii 77 oo annaga iyo Ethiopia na dhaxmaray dagaalkaas mid weyn buu ahaa taariikhda way xusaysaa kutub badan bay ku qoran yihiin dugsiya la iska baraa al'aana dawlada badan baa dugsiyadooda dagaalka ka dhiga dagaaladaas ay annaga iyo Ethiopia galay na dhaxmaray dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal si fiicanna ay u qorsheynay si fiicanna aan u maamulnay anigana shakhsi ahaan xusuus weyn ileh oo taariikhdayda meel weyn ka gelayo guud ahaan Soomaaliya dhan taariikhdeeda dagaalkaas meel weyn ka gelayo maxaa yeelay Soomaali waxay ku muuqatay dadka qiimaha ay leedahay dadnimadeeda iyo kartideeda ayay ku muuqatay maxaa u sababa waxa u sababa Ethiopia markaa waxaa loo yaqaanay libaaxi Afrika libaaxi geeska Afrika ayaa loo yaqaanay cidina isma lahayn ciidanka Ethiopia ciidan isur taagi karo ayaa Afrika ay leedahay cidna kuma fikraynin markaa laakiin ciidankii libaaxi geeska Afrika la baxay bisad baan ka soo saaray muddo bilooyin aanan badnayn gudaheed haddaanan loo soo gurman dibadda aan looga soo gurmanin oo dawlada waaweyn iyo ciidamo badan coalition ciidamo isbahaystay badan ayaan u soo gurmanna xaaladda intaa waa ka duwanaan lahayd dagaalkaas waxba yaanan ku dheeraanin hase yeeshee markaan xuso goobihii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahayd jigjiga oo ciidan xoog leh Ethiopiaanka markaa uu u joogay ciidamadooda taankiga ayaa fadhin jiray sideedana waxay leedahay jigjiga difaac adag oo dabiici ah buuraaley weeye markii difaacaas la abaabulo la qodo way la yaqaanaa sahal laguma mari karo isma ayan lahayn Ethiopiaanka karamardha ayay jiiri karaan Soomaalida oo muddo gaaban ku jiiri karaan isma ayan lahayn dagaalka jigjiga aad buu runtii u adkaa u qallafsanaa haddaan xusuustayda dib ugu noqdo 14 casho ayuu nagu qaatay jigjiga inaan ka takhalusno jigjiga waa dhaafnay waa la wada ogyahay harar markaan marayno ayaa ay noqotay inaan ka soo noqono oo ciidamo kale iyo awood naga badan ay soo gashay meesha lagama maarmaan ay noqotay marka inaan ka soo saaro ciidamadanadii oo aan ka soo baxno markaan aragnay qowida meesha soo gashay hubka soo galay colalka soo galay hadday tahay annaga iyo Ethiopia kaliya kama soo baxneen mana ay suurowdeen in laga soo saaro markii annana aan kaligayn noqonay oo marka halkaas waxay ku tusaysaa yani militarily waan ku adkaynay dagaalkii laakiin politically ba annana aynu weynay alliance ama rag nala safto dawlada nala safto oo na soo barbar istaago oo nala galo dagaalkii baan weynay mala awaal mooyaane xisaab saxa wixii Ethiopia uga dhintay kuma siini karo mana jecli wax aanan hubin inaan maartay iska tuuro laakiin haddana wixii annaga aan aragnay ama tirinay waa ku sheegi karaa laakiin runtii halkaas ma ah xaqiiqdii intaas weeye kuma dhihi karo qoladii dhibaatada ay gaartay baa sheegi karta annaga marka qiyaastanada goobahaas wixii aynu tira koobnay markaan ku soo qaado waxaan aaminsanahay taqriiban 15 ilaa 17 kun inay uga dhinteen Ethiopiaanka ayaan aaminsanahay